udxiyadaha lagu dadaalo berri saa dambeeye saakunba waynu haysanaa waxa weeye qofku hadduu neef qali karo hadduu laba qali karo hadduu awr qali karo haddii uu qali karo sac uu qali karo intaba awoodda qofkay ku xidhan tahay walaalayaal waxaan doonayaa kelmada inaan sheego ma aha inaan idiin sheego waxaad jeceshihiin ma aha inaan sheego waxaan anigu jecelahay laakiin waa inaan idiin sheego waxa idinla gudboon ee ifi aakhiro aynu ku nabadgelayno ee dalkan inuu ku dhismayo ee uu wax ku noqonayo ugu horreyn xukuumadda maanta talada haysa waxaanu kula talinaynaa wakhti adag baa lagu jiraa gudayo dibadba cabasho badan baa ka jirta waxaanu kula talinaynaa inay talada badiso waxaanu kula talinaynaa inay talada badsato dadkii khibradda iyo aqoonta lahaa ee dalkan qiimaha weyn ku lahaa ee lagu tuhmayey caqliga iyo cilmiga iyo garashada oo la leeyahay qaarkood albaabadu waa ka xidhan yihiin inay la tashato si dalkani uu u horumaro ayaanu kula talinaynaa rasuulku marka ay ku adkaato sidii dagaalkii beder markii uu ku jiray waxa uu ku celceliyey ashiiruu calaya ayuha annaas ashiiruu calaya ayuha annaas ashiiruu calaya ayuha annaas wardad yahow xaalad adag baynu ku jirnaa hallay tilmaamo sida habboon ayuu rasuulku 3 goor ku celceliyey waxaa istaagay saxaabi ka mida saxaabada oo abuubakara markaasuu aada u hadlay wuxuu ihi waad wanaagsan tahay ee iska fadhiiso dabeete waxaa istaagay miqdaad binu camr isaguna talo badan buu jeediyey rasuulku wuxuu ihi iska fadhiiso adiguna markaasaa nebigu wuxuu ku celceliyey war hallay tilmaamo halka wanaaggu yahay rasuulku wuxuu doonayey maalintaasi ansaartu inay hadlaan ansaartu dagaalkaasi 7% bay ahaayeen ciidanka muhaajiriinta hadashayna 20 bay ahaayeen maadaama iyagu maalintaasi ay dadka u badnaayeen maadaama maalintaasi dagaal lagu jiray rasuulku wuxuu yidhi iyagu ha hadlaan dabeete saxaabi ka mida saxaabadii ansaarta ayaa hadlay oo nebiga si wanaagsan u tilmaamay xukuumadda waxaanu leenahay war dadka ururiya war nin aan dadkiisa ururin cid iskama celiyo ama ha noqdo cadow gudaha ah ama ha noqdo cadow dibadda ah xukuumadda waxaanu kula talinaynaa ninka xaakimka ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii waxaa ka mid ahaa almu'minu alifun ma'luuf hogaamiyuhu waa mid dadka ururiya oo lagu ururo ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walaa khayra fii man laa ya'lifu walaa yu'laf khayr ma uu laha hogaamiye aan lagu soo ururin oo aan dadka ururin ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam war si aynu marxaladdan uga baxno xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi oo khayr badan aynu ku tuhmayno war dadkaaga la tasho war dadkii ummaddii halgankan gashay ururi war meel iskugu keen markaasaad awood u leedahay dagaalku waa taagtigis xoog iyo tiro maaha in maskaxdaada keligaa aada fuusho maaha inaad tiraahdo wax walba anigaa garanaya maaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam low ijtamactumaa calaa shayin maa khaalaftukumaa isagoo la hadlaya abuubakar iyo cumar waxa uu yidhi labadiinaasi waxa aa goysaan bay iigu dhan tahay ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam war dadka la tasha baanu leenahay madaxweynaha war albaabada u fur inta caqliga iyo cilmiga iyo kartida leh war wax ka weydii arrimaha dibadda war wax ka weydii arrimaha gudaha war wax ka weydii arrimaha dagaalka war wax ka weydii duruufaha inagu xeeran muslimiintu mar bay jabeen qarnigii 20aad waa markii heshiiskii Camp David uu galay ninkii la odhan jiray Saadaat waxaa wax ka qoray madaxweyne ku-xigeenkiisii
cabdisalaam caarif assalaamu daayic wuxuu yidhi waa nabadgelyadii muslimiintu ay ku jabeen buu yidhi wuxuu yidhi markii israa'iil aan ugu tagnay ee uuna hoggaaminayey iyaguna marka arrin uu naga godmado halkaasay iskugu baxaan buu yidhi intaasaa taayga lagu xiijiyaa ilaa ay kabaha isula baxaan oo ay dhiigga iskaga daadiyaan nagumay soo noqon jirin marka arrin uu naga adkaado annagana waxaa nagu jira 22 nin oo PhD holderisa buu yidhi keligii unbaa hadla buu yidhi wana geynis handaran 100 caqli haddaad doonto keligaa inaad ka hor tagto 100 gool baa laga dhalinaya muslimiintu maanta jabka ku dhacay waa heshiiskii keligii uu galay ninkii la odhan jiray assaadaad Camp David ahaa ee maanta Falastiin lagu qaatay ee maanta Siinaa waxa ka socda aynu ognahay ee maanta qasab waxa ka jira aynu ognahay war ninaan dadkiisa caqliga iyo cilmiga la aan la tashanin waa jabaya xukuumadda waxaanu leenahay waa talada badsada baanu leenahay walaalayaal waxaan la hadlayaa dadkeena mucaaridka ah wardalkani waa dal yar waa dad aad u kooban ma aha dad kala maarmaya waxaynu kaga soo bixi jirnay marka ay wax inaga gedmaan inaynu wada tashanno oo miiska la iskugu yimaado waa markii ugu horeysay ee ay dhacday Somaliland gudaheeda jabhadii inta ay baxdo inay tiraahdo Somaliland baanu la dagaalamayna waa arrin aad iyo aad aan qaban dadka waa arrin aan qaban halgankii ummaddu soo gashay waa arrin aan qaban 50,000 oo qof oo dalkan aynu u qadinnay waa arrin aan qaban 800 oo sannadood wixii aynu soo tabcaynay waa in la wada hadlo waa in wax la isweydiiyo war waxaanu leenahay dadkaaga la tasha madaxweynaha ma aha inay iyagu ku yimaadaan waa inaad mid walba halkooda ugu tagto waa inaad suba salaaxdo waa in waxa ay doonayaan la siiyo iyadoo aynu uga jeedno marxaladan aynu marayno inagoo mida inaynu ka baxno rag gogashiyo waa cadaalad nabadi ma ay jirayso haddii cadaalad la waayo waar dalkan ha la wada yeesho waar dalkan cadaaladda ha loo sinaado waar dalkan sourceskiisa ha la wada yeesho waar dalkan taladiisa ha la wada yeesho dembigeenna ilaahay ha dhaafo kawaalidkeen ilaahay ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha inoo fudaydiyo inta xanuunsanaysa caafimaad ilaahay ha siiyo ilmo yaroo halkan joogoo 10 jira oo caruurteennii aynu jeclayn ka mida ayaa aad u xanuunsanaya ilaahay caafimaad ha siiyo inta xanuunsanaysa oo dhan ilaahay caafimaad ha siiyo nabadgelyada ilaahay ha inoo adkeeyo nabadgelyada ilaahay ha inoo adkeeyo cadaaladda ilaahay ha inoo sugo وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه